wararka naga soo gaaraya saaka duleedka degmada Dooble ee ku taala xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaas ay ku rasaasayeen ciidamada Kenya gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah oo ku safrayay xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya inta la xaqiijiyay waxa rasaasta ciidamada Kenya ay ku fureen gaariga ay saarnaayeen dadka shacabka ku geeriyooday ilaa iyo 3 qof iyadoo laba kale ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhamaantood ahaa dadka saarnaa gaariga shacabka oo marayay degmada Dooble oo ku taala xuduudda labada dal ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose wali wax warar kama soo bixin mas'uuliyiinta degmada Dooble oo ku aadan rasaasta ciidamada Kenya ay si bareer ugu fureen dadka shacabka oo ku safrayay deegaankaasi dhanka kale sida dadka deegaanka ay sheegeen galankii dambe ee shalay waxay duqeeyeen ciidamada Kenya degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo diyaaradaha Kenya ayaa waxa la sheegay inay dhowr gantaal ku tureen gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyadoo gantaaladaasi ay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmadaasi sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen in gantaalada diyaaradaha Kenya ay ku tureen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo aysan qarxin isla markaana laga cabsi qabo in ay qarxaan oo dadka deegaanka ay dhibaato u geystaan mas'uuliyiinta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo xiriir kala duwan la sameeyay ayaa inoo suurtagelin inaan haleelno si aan wax u weydiino duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka geysteen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo inta badan ciidamada Kenya waxay dhibaato fara badan u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka dhaca xuduudda labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya duqeymaha diyaaradaha Kenya ee ka geystaan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxa la sheegaa in inta badan ay beegsadaan goobaha shacabka iyadoo duqeymahaasi ay shacabka ka soo gaaraan qasaaro isku jira dhimasho dhaawac